safarka waan ugu baxnay deegaanka waqooyi gobolka Togdheer ayaa ujeedkiisu ah kurgalka xaaladda nololeed dadka iyo deegaankaasi guddida deegaanka Riyo Xidho iyo deegaanada hoos yimaada iyo xukuumadda Soomaaliland iyo maamulka gobolka Togdheer ka codsaday in hoos u eegaan baahiyaadka degmada sidoo kalena wasaaradda caafimaadka iyo waxbarashada uu sheegay in loo baahan yahay waxtar degdeg ah isla markaana ay waxay soo booqdeen iskuul boodhan ay qurbajoogta deegaanka ka hirgeliyeen degmada Riyo Xidho sidaas oo ay tahayna waxay cod dheer ku sheegeen in degmada Riyo Xidho ay u baahan tahay ambalaas ka caawiyo gurmadka caafimaadka gudoomiyaha beeshan degta degmada Riyo Xidho Dr. Cumar Dhagac qurbajoog guddida beesha ayaa dhamaantoodba sheegay 10 August 2017 waxaanu joognaa degmada Riyo Xidho waxaanu dhex taaganahay goob boodhan ah oo loo sameeyay degmada oo ay u sameeyeen dadkooda qurbajoogtii iyagoo isu tashaday iyagoo markaa qiyaasay baahida dadkooda oo marna ka guuriyay deegaankii xilliga abaartu yar timaado xilliga barwaaqadana u soo guuriyay ay caruurta uga reebaan ay hooga ay u sameeyeen iyadoo horena u jiray dugsigii oo galaasida ay noo sameysnaayeen markaa waxaan u soo gudbinaynaa dawladda especially wasaaradda tacliinta inay qaybteeda ka qaadato anagu wali dadaalkayga sii wadayna wixii aan dhameystiran karnaa aan dhameystiranayno waxaan codsanaynaa inay dawladdu nala eegto aniga waxa la yiraahdaa Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Cali Yare waxaan ka tirsanahay guddida beesha Muuse Ismaaciil Galbeed maanta waxaanu joognaa degmada Riyo Xidho degmada waxa ka dhisan station police iyo xanaano iskuul malcaamad intaas oo runtii aan oran karo stationka mooyaane in alla inta kale shaqadoodu ma aha shaqo taama waxaana weeyaan sidaynu dee u wada garanayno waa hawlihii asaasiyaadka ahaa ee shacabku u baahnaa ee waajibka ay ahayd inay dawladdu badidooda gacan ka geysato magacaygu Cabdixakiin sidaa odayaasha hore iyo habluba sheegay waxaan ku suganay degmadii Riyo Xidho oo aanu maanta ugu baxnay xog waraysi xagga waxyaabaha asaasiga ee bini'aadanka sida caafimaadka iyo waxbarashada degmadu sidaa odayaasha hore sheegeen waxa laga hirgeliyay iskuul hore iskuul imika la dhiso isna boardina iskuul hore waxa iskuul leeyahay kana imika la cusbana waa iskuul boardina xanaanadii station place xanaanada waxa hirgelisay dawladda ama dawladda hoose oo hogaaminayo maayarka iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka Togdheer ama degmada Burco sidaa odayaashu sheegeen waxa iskuulkan hirgeliyay qurbajoogta beeshan aanu ka soo jeednay degmada Riyo Xidho oo gacan weyn ka geystay waxa imika loo baahan yahay isagoo iskuulku taagan xilligii furitaanka teeramkii iskuulada oo ay wax badan ka dhiban yihiin sida qalabkii sida materialiska wax lagu barto kale sariirihii ardayda loogu talagalay oo wax kamidana aanu hayno deegaan ahaan waxaanu dawladda ka codsanaynaa gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda caafimaadka inay soo dhamaystirto wixii ka dhinaa qalabka waxbarashada iskuulka boardingka iyo xanaanada xidhan ee sanadka imika dhisnayd oo u baahan shaqaalaha caafimaadka dawooyinkii degmadu aan lahayn ambalaas sida qolyaha hore sheegeen marka loo baahdo ama wax emergency ku yimaadaan waxa loo qaadaa dadka ku xanuunsada ama dadka umulaya labada degmo ugu dhow ama Bilidhiig ama waxa loo qaadaa Duruqsi waxaan doonayaa inaan haddaynu nahay qurbajoogta aan kelmad yar oo dardaaranna inay idhaaho xaqiiqatan kelmadda dardaaranka waxaan isleeyahay deegaankan aynu ka soo jeedno xaaladiisa in badan imika ay odayaashu ka dhawaajiyeen wuxuu kaga bixi karaa duruufta adag ee haysata wadajir iyo midnimo isu dhaganuglaan iyo gacmo isqabsi iyadoo oo ay inala jiraan oo aan rajaynayo jecel lahayna sidaas oo kale inay dadka guduhuna ay gacmaha isu qabsadaan oo aynu gacmo wadajir bay wax ku gooyaan aynu kaga dhigno arrinta taas oo keliya ayaynu waxyaabaha asaasiga ee inaga maqan ee runtii dadkeennu ay maanta u dhulyaal u yihiin ayaynu kaga bixi karaa laakiin haddaynu kala daadanno haddaynu isqaybqaybino haddaynaan isu dhaganuglaan waxaan aaminsanahay inaynaan wax badan
qaban karin waxna ka caawin karin dadkeena deegaanka u dhashay ee duruufta adag haysato taasi waxa weeyaan waa ta qurba joogta iyo gudahaba haddaynu nahay dadka deegaanka u dhashay waxaan leeyahay reer Burco waa dadka deegaanka u dhashay ha noqdeen dad soo jeeda ha noqdeen dad fahmi kara qurba joogtu qaabkay u shaqayso ama ay wax u soo caawin karto oo ah inay mar walba helaan warbixin joogta inay la shaqayn joogta helaan oo aan ahayn runtii sida iminka habacsanaantii kala daadsanaanta aynu ku jirro ayaan soo jeedinayaa oo u soo jeedinayaa dadka deegaanka u dhashay dibadda iyo gudahaba waxaan kale oo intaa ku sii daraya runtii in badan baa dee dawladda laga hadlay hadda laakiin waxaan leeyahay idinkaa mas-uula ummaddan ilaahayna idinku idin weydiinaya dadkuna idinku idinla xisaabtamaya oo sidii qolyo horeba ka dhawaajeen weli waxaa rajaynaysaan inaa maamulkii dawladda uu sii jiro oo isagoo awood leh oo ma garanaysa ummaddiisii raba inuu hanto sii shaqeeyo sidaa darteed waa codsanaynaa waana laydinla shaqaynayaa haddii laydinka arko waxaan leeyahay maxaa inaynu guud ahaanba mas-uuliyaddayna saaran wada ilaalino haddaynu nahay shacabka iyo haddaynu nahay dawladda qof walibana waa mas-uul kullukum raaci وكلكم مسؤول عن رعيته رسول الله عليه الصلاة والسلام. odayaashii waxgaradka deegaankan ayay iyaguna dhankooda iftiimiyay inay u baahan yihiin gurmad caafimaad iyo mid waxbarasho degdeg ah siiba waxay xoogga saareen inay deegaanadan helaan goob caafimaad oo shaqaysa dhinaca waxbarashada iyo kor loo qaado. ولدينا نوتمي odayaasha ama wafdida ama waa salaamantii waxaan inta ku daraynaa magaalada ama degmadu waa degmo fara badan annaguna waxaan odayaasha ama gudida ama dadka deegaanka marka la joogo waxa loogu dhiibdhiibo ama qayb-qaybiyo ama tiro geliyaanu nahay waxa naga dhibanaanu u baahanahay inaanu sheegano oo dawladda u sheegano oo shacbiga kale ee magaranaysa magaalooyinka jooga ee naga dhaqdhaqaaq roon u sheegano oo la isku gudbiyana waanu u baahanahay kuwaas oo ay ka mid yihiin waxa la dhisay iskuul dadka qurba joogta uu dhisay oo u dhisay dadka in wax ku bartaan dee xoolo ka baxeen ama se dadkii xoolii ka baxeen ima ku fara badan yahay dadkii xoolaha raaci jiray wadanka waxa jooga ninkii caqli lena waa ogyahay inaan caqli lahayn cid uga sheekayn kari mayso waxa weeye wadanka abaaraha ka dhacay wixii caawa ay ka tageen waxa weeye duunya kama tagin dad bay ka tageen dadkii waxa weeye waa dad jahliya oo hore jahli u ahaa imakana jahligu inbuu ku jiraayo mag jahli ka bixin waxa weeye sidaa odayga horeba sheegay waxaan u baahannahay iskuulka in naloo furaa baan u baahannahay iskuulka in naloo furaa baan u baahannahay waxaan u baahannahay dadka jaariyadaha waxa ay loo soo gudbiyaan iyo wixii caawa haddii beedankeeda leeyahay qolada guddida ay soo gudbiyaanba inay si dhaqsale noo soo gaadhaan waanu si dhaqsale u helno aanana jaariyadaha aanaan kala war la'aanin waxaanu jecelahay in caawa caruuri ayda ku jiri jiray oo iyagoo kumaan kuna bay joogaan dhulka cusbad naloo furo meesha xanaanada in naloo furo waayo ta ugu dhibaatada badan leh waa xanaanada magacaygu waa Sagar Yuusuf Ibrahim ka tirsan dhalinyarada Muuse Ismaaciil anigu waxaan oran karaa degmadan mar kaliya la xasuusto markii degmada loo magacaabay baa la xasuustay mar labaadna lama xasuusanin maanta haddii loo baahdo cod haddii loo baahdo aqlabiyad haddii loo baahdo dad halka kaliya la iman karaa waa degmadan oo inta dadka ku nooli ay ka badan yihiin degmooyinka qaar iyo tuulooyinka qaar ay joogaan saddex ee qurba joogta ahaa ee dalka joogay ee u dhashay degmadan alxaasil degmadan waa degmo ku dul nool ama ku hoos nool degmooyinka ay dawladdu sida caamka ah u taageerto sida balidhiig oo kale biyaha waxa looga keenaa balidhiig ayadoo de iyaduba heli karaysay in loo sameeyo riig dhanka caafimaadka gabadha foolanaysa ama gabadha de umuli kari weyday waxa loo qaadaa Burco ayadoo aan loo haynin gaari lagu qaado
iyadoo aan loo haynin gaari lagu qaado iyadoo aan loo haynin maxay ahayd ambalaaskii ay xaq u lahaayeen degmadan inay hesho oo aanay helin degmadan Riixidho waxay lahayd oo la siiyay oo hanti u ahaa hal gaari oo aad iyo aad ugu tamariyay oo uu siiyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani gaarigaasi hadda ma tamariyo maadaama uu muddo dheer shaqeynaya hawlo badanna uu qabanayay oo degmada uu qabanayay oo dhan walba uu ugu shaqeynayay hadda uu ka fadhiyaa xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan isna ugu baaqayaa idinka ayaa hore isu garab taagay degmada Riixidho haddana inay isgarab taagtaan ayaan insha Allah biidnillaahi kariim idinka rajaynaynaa gaarigii aad bixiseenna waa ku amaanan tihiin ka xisbiga mucaarad ahaan haddana waxay idinka sugayaan shacabkii oo aan idinka sidnaa fariin ah inay gaarigaas bedelkiisii iyo in ka badanba ka mucaarad ahaan ay u qaban doontaan insha Allah oo dan halkan keentay oo xoolo lahaa oo xoolihii Ilaahay lahaa naga qaaday hadduu naga qaadayna waxaanu isir dal iyo dawlad iyo dalkiini qabto ku eertabaan waxaanu dhibtaanu geysanay annagu garan mayno sidaas kii soo guuxay iyo kiina dhaafay waxaanu isnaa saaka leedii sidaa diyaar leedii kii walbana xuftaas uu nagu dhaafaya dan iyo baahino halkaas ayna dhigtay waxaanu haysano oo saakaanu haysano aanu dib ugu noqono aanu sano adduunyo idinka dambaysana ma jirto tan oo kale dawladda wax ma naqono ma qaban wax laali wax dawladdaas noo qabatay ma jirto may wax dawladda ka socda markuu dhamaanu arag marquudha dawlad maanu arag waayo kama baanu cabaneen oo bisadna kaara noqon lahayd dawladda intay noo tibadaanu ka cabanno waxan buu noo yimi barasaabku maalintaana wuxuu yiri waxaan gelinayaa cagaf baan gelinayaa meesha oo markii dambana muraayadu isu kaya taagay barasaabku oo muraayadu naga maaga oo yiri dadkanu ma aha dad cayda waxa weeye dad yacniga codays meesha loogu soo dhaweeyay waxa weeye yacniga dadkii burco ee inaanu caydnahay inaan xoolo weyna iyo in baahina keenta midna muu eegin waxaanu nahay ragga loola jiray sooyaal wadanka ku burburay ku dhaawaca isagoo joobana ah oo 20 jira galay dagaalka saakana wajiga daayeer kale aan xuquuq ku qaataa jirin ee dadnimo waxa ogaalo ku qaataa aan jirin una dhimanayay dalka sidii bay leeyahay oo ku waalidku ogaayay bay leeyahay waxa ay ku maqnaayeen hantida hore weeyay rabisiyay tiila baa qaaday waxiga dhacay cidna kama qarsoona halkan guriga samo ee ay ku nool yihiin wali ma arag 4 bilood ee aan meesha joogay ee xagga carabida waa ka 4 bilood xagga kalena waa 3 bilood iyo 12 nimada noo yimi ee duubaya iyo kuwa la socda intaba waan salaamayaa anu waxaan ka hadlayaa magaalada nimka joogan ka hadlayaa waa guriga samo magaalada intii imika laga hadlay anu horta ka hadli maayo laakiin laba kelmadood oo kaliya aan ka hadlayaa biyaha waxa weeye ugu horeyn horta waa biyaha ku xigeenna waa dadka meesha jooga ee qaajada u baqtayaya ee ilaahay xaaladooda wada og yahay weeyaan waxana uma dhaxyaalaan ceelna uma qodna ceelna uma maqan waxa weeye dad Axmed Jaamac Aadan telefishinka caalamiga SBC magaalada Burco